الرحيم maanta waa maalin weyn waxay ka mid tahay maalmaha qiimaha badan oo shacabka gobolka Banaadir runtii qiimo weyn ugu fadhida oo maanta ay ku heleen mataladoodii 13 kursi ee aqalka sare waxaan rabnaa inaan uga mahad celino madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo go'aankii uu ku gaaray inuu ku dhiirado inuu saxiixo qaraarkii baarlamaanka ka soo baxay ay xuquuqda ku siinayeen mataladooda aqalka sare shacabka gobolka Banaadir runtii anagana ka baarlamaan ahaan farxad weyn ayay noo tahay mirihii iyo dadaalkii faraha badnaa ee aan ku matalaynay shacabkan gobolka Banaadir inay xuquuqdooda ku helaan inaan maanta miraheedii aan guranayno guusha ugu weyn ee u soo hoyatay waxaa iskale shacabka gobolka Banaadir oo hormuud ugu yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya baarlamaanka labadiisii aqal oo runtii juhdi badan ku bixiyay inay shacabkan gobolka Banaadir ay helaan xuquuqdooda matalada 13 kursi ay ku yeelan doonaan runtii waxaa farxad weyn ah oo maaragtay aan la soo koobi karin sabarkii faraha badnaa ay muujiyeen shacabka gobolka Banaadir oo muddo dheer naawilayay inay helaan mataladoodii dhabta ah ay ku yeelan doonaan aqalka sare ayagoo u maray si nabdoon u sheegtay dareenkooda muujiyay muddo badanna soo qaadatay laakiin nasiib wanaag uu ku dhiiraday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu maartay riyadaas muddada dheer ay sugayeen inay shacabka gobolka Banaadir helaan sidoo kale waxaan mahad gaar ah rabaa inaan u celiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo runtii laf dhabar u ahaa in shacabkan gobolka Banaadir ayagana xuquuqdooda si dhaba ay u helaan kuna dadaalay waxyaabo badan oo asaasi u ah gobolka Banaadir oo ugu horeeyaan laamiyada caafimaadkii oo la soo wareegay waxbarashadii iyo adeegyadii bulshada ay gobolka Banaadir ay lahaayeen mudane gudoomiye dadaalkaada faraha badan oo aad juhdi iyo maskax waxa leedahay aad ku bixisay dadkaada inaad wax ugu qabato ilaahay ka jaazaysiin doono Soomaaliya idima maqlaayo hoosaad u dhahaysiin kor u qaad Soomaaliya ama santiin maanta aniga waxay ilmin tahay anoo buurtii oo xad jooga oo cibaadaysanayo xaqiiqatan markee waxaan noo dhashay waxaan muddo badan ku taameynay oo aan runtii habeenii maalin aan u soo jeednay ayaa maanta nooga dhabeeyay waxaan rabaa qodbada intii fiicnaa dadkii iga horreeyaa sheegay arrinta gobolka Banaadir mataladiisa meelaha ay soo martay iyo qaababka ay u soo martayaan rabaa inaan idiin sharaxo koow baarlamaanka markii la furay kalfadhigii 8aad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa codsaday baarlamaanka furitaankiisii in la siiyo gobolka Banaadir mataladiisa ma hade ha ka gaadho baarlamaankii oo qiireysan oo arrintaas qaatay oo si dhab loo qaatay aqalka sare oo aan rabo halkaan inaan ugu mahad celiyo ayaa isla markiiba hindirshaciyeed ku keenay annaga wuxuu noogu yimid golaha shacabka ahaan aqalka sare ayuu noogu yimid sharcigan marka dad baan arkay dhahaya aqalka sare lagama soo sharciyeynin aqalka sare asaas soo bilaabay aqalka sare asaas soo bilaabay sharcigan asaa noo soo gudbiyey sideedana hindirshaciyeed markii la sameynaayo labada golo mid unbuu ka yimaadaa marka dadka facebookyada qoraayo oo ummadda si jahawareerinaya ha ogaadaan aqalka sare dadkii abaalka ku lahaa gobolka Banaadir ee ku keenay mooshinka ee annaga noo soo gudbiyey waa xaadir waana nool yihiin insha Allah isla markii noola keenay annaga waan ansixinay oo aqalka sare as noo soo gudbiyey waan ansixinay muxuu ahaa madaxweynaha loo gudbiyey madaxweynahana shalay ayuu saxiixay ma hade ha ka gaadho marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay arrintaas oo aqalka sare ugu horeeyo
oo madaxweynihii codsaday isku xigo oo shalay madaxweynihii saxiixay muxuu ahay ka mid yahay iyo golihii shacabka qofna xaquuq la'aan dawladda dhexdeeda kuma ahaan karo cidna abiyuus laguma samayn karo gobolka banaadir oo ay 9 milyan ee Soomaali lagu qiyaasay 3 milyan oo ka mid ah ay degan tahay xaquuq ma leh ma soconayso ما شاء الله ما شاء الله مدحوينها جمهورية فدرالك سوماليا كر الله كديو كر الله كديو عيل بحي واي وعيل بحي دتك قولك بنادر قف والباء او وح وناكسن سمية وحوليها هي دعوي كرامة مدحوينها اكتاين كرامات كل هذا وحان ربا قدوميها قبلك او رنتي مركي دبع سنان اي تيمت aan islahanay malaha mar baan baquus gaarnay marada u xirtay oo muxuu ahay ka soo saaray qolobadii ay gashay waan ku mahad celinayaa gudoomiye aadan kaaga mahad celinaya waliba waxa nasiib ah qofka asagoo xil haaya maanta gobolka banaadir xaquuqdiisi muxuu ahay gacantiisa ku soo qaad wuxuu noqday hiirowga gobolka banaadir insha Allah madaxdii soo martoo inta kadib waxaan rabnaa reer banaadiroow guushi waad hantiseen inaad difaacatiin la idinka rabaa nidaamka aad ku difaacanaysiin waxaa soo hindisi doono maamulkiina iyo madaxdeena iyo gudoomiyaheena gobolka ayaa soo hindisi doono asaga ayaad wax la qabanaysiin sida uu idinku ku yiraahdo ku difaacda waxiina calaawad badan baad leedihiin wallahi hadday tayda tahay oo tan gudoomiye Umar Finish ay tahay oo tan Cali Galay ay tahay oo xildhibaanada maanta meeshan jooga tooda ay tahay baarlamaanka maanta shaqeynayo 10 dad kula yeelan lahaydeen waa noolo diiday cadawgii maalintaas diiday maanta wuu joogaa cadawgii maalintaas diiday maanta wuu joogaa kaasaan rabnaa inaan ka difaacano oo aan dhahna yeeli mayno xaquuqdayna annaga waa mid madani ah waa mid aan xaq u leenahay waa dadka gobolka banaadir waxay xaq u leeyihiin inaan difaacano waay xaqiiqatan haddaan difaacanin Soomaaliya xaaladda ka jirta maanta waa la isdardara yaan lagu dardarin gobolka banaadir dantiina aqoonsada waxaan arkay dad mudaharaad bilaa macna loo soo saaray oo aan dantooda aanan eeganaynin hooyo la leeyahay banaanbax galaal qoriyaan kala taaganahay ciidankii dawladana horiyay ka jiraan la leeyahay gobolka banaadir aan ku